afhayeenka jaaliyadda khaatumo ee imaaraadka Rashiid Diriye oo maanta waraysi gaar ah siinayay telefishinka caalamiga ee Somali Cable isagoo ku sugan dalka Djibouti ayaa waxaan ka wareysanay arrimo ay ka mid yihiin ujeedada safarka madaxweynaha iyo maamulka Khaatumo Professor Cali Khaliif Galleer iyo wafdigu hogaaminaya ee ku sugan dalka Djibouti kulankii dhawaan ku dhex maray madaxweynaha maamulka Khaatumo Professor Cali Khaliif Galleer iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Somaliland ee wadani ee magaalada Addis Ababa sidoo kale afhayeenka oo aan wax ka weydiinay sidii uu arko doorashadii uu dhawaan ku guuleystay xildhibaan Cali Axmed Jaamac Jengele ayaa isagu soo u hambeliyay balse sheegay inay ka mudnayd in laga doorto magaalada Laascaanood oo ay doortaan ismadiisa iyo waliba siyaasiyiintiisa waa sida uu isagoo hadalka u dhigay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaasheeda sharafta leh waxaa caawa khadka taleefanka ee magaalada Djibouti ee wadankaasi Djibouti aan nasiib u yeelanay inaan kula xiriirno gudoomiyaha jaaliyadda Khaatumo ee Imaaraadka Rashiid Diriye gudoomiye kusoo dhawow telefishinka caalamiga ee Somali Cable. bismillahi raxmaani raxiim awalan waxaan aad ku faraxsanahay inaan telefishinka Somali Cable aad iga wareysataan aad iyo aad baa wariyaha weyn ee Saddam aad idin soo dhaweynayaa. gudoomiye sidoo aragtaa wadahadaladii dhawaan ku dhex maray magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya madaxweynaha maamulka Khaatumo Professor Cali Khaliif Galleer iyo gudoomiyaha garabka xisbiga wadani ee maamulka Somaliland sidoo aragtaan jaaliyad ahaan gudoomiye wadahadalkaas ama dhexmaray marka hore waxaan doonayaa in ummadda Khaatumo iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inaan u diro salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. haddii aan usoo noqdo anigu waxaan hadlayaa fikirka wadahadalada ka furmay magaalada ee ka dhacay magaalada Addis Ababa laba asbuuc ka hor laakiinse sida dastuurka Khaatumo ku qoran cid kasta oo Soomaaliya ama maamul ha sheegteen ama beel ha sheegteen waxaa ku qoran in wada hadal hadday codsadaan in lala hadli karo uu u furan yahay aan la iska hortagaa daabkaas aan la xiri karin wada hadalka dastuurka Khaatumo ayay ku jirtaa maadaama de iyagu ay codsadeen oo yidhaahdeen aan aragno si albaabka looga xidho la garan maayo waana la wada hadlay waxaan se u malaynaya waxyaalaha aanu ka dhegaysanay gudoomiye Ciro oo uu ka sheegay warbaahinta uu ka sheegay iyo waxyaalaha markii aan halkan aan ka wareysanay madaxda Khaatumo inay aad iyo aad u kala fog yihiin uu ka hadlayo Ciro uu leeyahay waxa lagu soo biiraya ama laga mid noqonaya maamulka Somaliland ma jirto waxa ku soo biiraya ma jirto marka saameyn gudoomiye ma jirto gudoomiye saameyn teleg baad filaysaa inay wada hadaladaasi ay ku yeelan doonaan wada hadalada dhawaan la filayo inay u furmaan maamulka Khaatumo iyo Somaliland misle saameyn bay ku yeelan doonaan wada hadalada wallahi hadaladaasi anigu u malayn maayo saameyn ay ku yeelanayaan waayo waxay Cabdiraxmaan wuxuu ka mid yahay saddex xisbiye isku beesha ee tartanka ku jira hadalkiisana kolley anagu waxaan u qaadanaynaa hadal ah campaign uu ku gelayo oo campaign doorashada uu ku gelayo yaan u qaadanaya sidii hadaladii ka soo yeeri jiray ninkii ayaa u tartamayay waddanka Mareykanka Donald Trump la yiraahdo oo hadaladiisii bay u eg tahay hadalada ka soo yeeraya ama ayaan tidhi warbaahinta uu siiyey ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Ciro anagu hadalkaas wax saameyn oo nagu leeyahayna ma jiro oo Khaatumo ku leeyahayna ma jirto madaxdeena iyo inta uga qayb galaysaana dad loo tilmaamo wada hadalada ma aha waa dad dhisan waa dad aqoon u leh waa dad qaarkood ilaa 60 sano ku dhex jireen 50 sano ku dhex jireen siyaasadda Soomaaliya iyo wada hadalada waa qad ay maanta ugu horeyn sida loola hadlo caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed sida loola hadlo aqoonna waan u leenahay waa aragnimo aad waa u leeyihiin dadka aan u xilan doono inay wada hadlaan oo qayb galaan waayahay gudoomiye markaynu ka nimaano arrinta xisbiga wadani iyo maamulka Khaatumo hadda madaxweynaha maamulka Khaatumo iyo wafdiga uu hogaaminayay ee dhawaan kula kulmay Addis Ababa madaxweynaha Somaliland waxay ku sugan yihiin wadanka Djibouti waxayna ku joogaan safar aan la shaacin ujeedadiisa ma noo faahfaahin kartaa safarka ay ku joogaan magaalada Djibouti madaxweynaha maamulka Khaatumo ujeedadiisa wallahi wata safarkaasi safar qarsoon maaha wax la dhisay ama wax dhuumasho ku soo galeen waxa weeye marinkii Soomaaliya loo mari lahaa baa u fududaatay oo halkan insha Allah wadankiisa ay uga aadi lahayn halkan u soo mareen wax campaign siyaasadeed ama dana siyaasadeed ama nimankii kuurgalka u noqon jiray Hargeysa halkan ku sii sugu jiray ama dhaxa ku sii sugu jiray waa ka waawan yihiin nimanka halkan jooga ee saddexda ah dhaxgalo shaaka waxa ka dhacday doorasho kamid ah xildhibaanadii aqalka hoose ee dawladda Soomaaliya magaalada Garowe ka dhacday waxaa lagu doortay wasiirkii hore ee arrimaha hawada iyo duulimaadyada Axmed Jaamac Jengele sidoo aragtaa doorashada uu waaska xildhibaanimo kula soo baxay Cali Axmed Jaamac Jengele والله doorashadaasi dee anigu
axmed jaajingada cali axmed jaajinga waa nin weyn oo odaya muddo badana koleysa dowladii federaalka iyo dowladii soomaaliyeed ba ku dhex jiray xeelad badana kasoo qabtay horta waxaan jeclahay in meeshu tartanka uu garowe ka gelaya maanta waxaa ii ficnaan lahayd isagoo tartanka ka gala magaalada laascaanood oo garaadadiisii iyo ismadiisii iyo waxgaradkiisii iyo ay soo xulaan oo ay soo magacaabaan ama wixii kaloo magacaabay kama horjeedo laakiin meesha uu maksbad ka raadsaday ee golaha uu fadhiyo ama maanta lagu soo dortay baan ahay gola munaasibkiisii ah waayo marti buu ka yahay magaalada garowe meesha lagu soo magacaabay ama doorashada ka socotay marti buu ka yahay anigu doorashada uu kusoo baxay de haddii ay anigu ninka xun yihiin waan u hambalyeynayaa laakiin si waxaan haddaanu khaatimana ka horjeednaa sifaha ay u dhacday meesha lagu doortay iyo cidda soo magacawday iyo cidda u seexday iyo meesha maanta aan ahayn carab baahante ee maanta waayahay ugu dambeyntii maxaad ugu baaqi lahay shacabka deegaanada sool sanaag iyo cayn maadaama ay dhan kasta ay ka jirto xaalad siyaasadeed oo kala duwan dhinaca ay ciidamadii somaliland ka haystaan deegaanadii dhinacna ay xildhibaanadii puntland soo xulayso maxaad ugu dambeyntii ugu baaqi lahay shacabka khaatumo shacbiga khaatumo dal iyo dibadda horta waxaan ugu baaqayaa midnimada inay ilaashadaan waxaan ugu baaqayaa dadka dhibaataysan abaaraha ah abaartu ay hayso ee maanta ku dhibaataysan dalkii ee aan dowlad iyo shicib iyo cid alla u hadlaysa ayan jirin in jaaliyad kasta ay maanta u gurmato oo dadkaas sidii loogu gurman lahaa loogu gurmado oo la taageero waayo fi aakhiraba waa arrin noo fiican dadkeena oo dhibaataysan oo maanta maamulkan gobolada hareeraha naga xiga ay maanta wax allaala waxay ka geysanaya aan jirin oo cid walba u hadlaysa ay jirin in ay loo gurmado dadkaas baan ka rajeynaya waxaan kaloo ku baaqayaa ummadan dhalinyaran warbaahinta ee qoraysa maqlaysaan ha waan ku maqlayaa dhalinyaro waxaan fariin u dirayaa dhalinyarada warbaahinta qaarkeed ee qoraysa lacagtii khaatimo ayaa lagu jira hotelada waaweyn ee meesha la yidhaaho jabuuti ina maadareer waxay sheegay horta jabuuti waxa weeye waftiga halka maraya leeyahay uu ka wato barso cali khaliif bare madaxweynaha maamulka khaatimo horta waa nin asxaab badan oo ilaa iyo qaar waxaan arkay ilaa iyo 40 sanadood oo dowladda jabuuti kamid ah ay isiyaqaaneen oo qiimo iyo qadarin ma ka dhaxayso oo u imaanaya oo marxabaysiinaya oo la kulmayay banaan xitaa goobjoog u ahaa oo wasiiro qaar hore soo maraya qaar haddaba jooga ay jiraan waxaan idin sheegayaa dhaqaalaha asigiisa lagu jiro dhaqaale maanta anigu haddaan runta idin sheego jaariyadda muddadaan ka tirsanayo oo madaxda ugu sareysa aan kamid ahayo 5 sanadood shilin la ururiyey oo kasoo baxay jaariyadda ma jirto kaasina waxa uu ahaa afhayeenka jaaliyadda khaatumo ee imaaraadka oo waraysi gaara siinayay telefishinkan caalamiga ee Somali Cable wasadam Cabdullaahi Cabdi telefishinka caalamiga ee Somali Cable Bohol.